sheekha weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo maalintii Jimcihii booqasho ku soo gaaray magaalada Yohale ayaa waxaa soo dhoweeyay dhammaan bulshooyinka qaybaheeda kala duwan. Wuxuu sidoo kale booqasho ku tagay madrasada diiniga ah ee Imaam Shaafici isagoo ugu duceeyay ardayda dhigata madrasada. badan gabdhiyo wiilal leh boqolaal ah intaan ku maraynay waa meesha runtii ah islaayaga way ugu xamad badan tahay santarkan Imaam Shaafici magaalada Yohale caruurta waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala fahmada ha idin furo waxbarashada allah idin sahlo mustaqbal wanaagsan u yeesha allah idinka dhigo waa dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba ku soo barto wax ka bedel allah idinka dhigo ilaahay bitanka iyo aafaadka idinka xifdiyo dadaala insha allahu tacaala khayrka barashada waqti fiican geliya ku dadaala mustaqbal fiican insha allah yeelataan ku tartama dhulkan iyo xaaladda kadib sheekhu galay masaajidka weyn isagoo ka akhriyay khudbadii Jimcaha salaadiina la tukaday. Bacda salaad wuxuu dadka fursad u siiyey inay weydiiyaan su'aalo diini ah isagoo uga jawaabay su'aalo badan waqtina la qaatay una aqbaliyay oo wacdiyay. Wuxuu intaas kadib sheekhu uga sii ambaqaaday magaalada Dhagaxtuur isagoo la kulmay wiilkii yaraa ee daaciga ah ee Maxamed Yare waqtina kula qaatay qabalaha Dhagaxtuur la yiraahdo ee ka tirsan degmada Yohale isagoo u duceeyay. Muuminka waa maciinka rasuulka hamiga nabigu xambaarsan yahay dareenkii nabiga qalbigiisa ku jira markaa maseexanaya horta ma jirto macadu khalaas nabigu alayhi salaatu wasalaam anuu radiyallahu anhu markaasuu nabigu ka yiri wuxuu sheekhu intaa kadib u dhaqaaqay magaalada Dhagaxbuur oo uu ku hoyday isagoo socdaalkiisa iyo ninka xaqiiqada ka hadlaya marka aragaaga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo ugu baahan insha Allah ay insha Allah